noloshan hadda caadiga ah oo maartay inagu hadda aan ku noolnahay oo adiguna caadi u aragtid dadkuna caadi u arkaan anigu waxaan u baxshay noloshii nolosha dee waxaan u baxshay iscaajka ama nolosha waxaan u baxshay suuq nolosha buuqa nolosha aan deganayn nolosha bilaa xasiloonida ah hanu baxshay gabadhan waa Deeqa Afra waxay si cad u sheegtay in ay qalbigeeda ka dareemayso raaxo darro balse nasiib darro waxa ay xasiloonida ka raadisay in ay guursato nin cawaan ah nolosha horta waa kadeed bataatanba laakiin waxaan sii horta bal deeqay hadaad maaragtay tan ad qofkii wixii intuu wixii maaragtay saluugo inuu hadana xal keeno waa muhiim marka waxaan sii bal xalkeen maadaama aad noloshan aad u bixisay nolosha xasilooni darrada bal nolol maaragtay tan dhaanta keen الله سبحانه وتعالى آية قرآن وحكوليه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله سبحانه وتعالى وحوليه قفكي واندي كجيستا وحان كنا لنا يا نلل عريري ونحشره يوم القيامة أعمى ما أنت قيامنا وحان كينا يا الساقو إن دالهين ورد waxaan ku fikiray inaan maaragtay aniga ahaantaydu intaan fikiro oo aan xil walba macnaha ay ugu qaadato ama in kastaba ay ila gaartay aan horta aan u guuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah ama maxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa cawaanta gabadhan la yiraahdo Deeqa Afra sida ka muuqato ma raadinayso lacag balse waxay raadinaysaa meel ay qalbigeeda ku dajiso بس إلهي وحوليه سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قفكي ربا إنه قلبك سحسلو وإنه كدد على دينة إلهي وإنه أذكارت بديا وإن ذكرك إلهي أو بديا وإن صلاةها أو بديا وإن سيدوك أو كتوبت كينا حدي أو كل حجر حمان أدو حوالك in lala kulmo dadkan maaragtay duurjoogta ah si loola xiriiro in lala kulmo waxa soo dhan aad buu adag tahay adigu juhdi badan iyo arrimo badan baa meeshii maaragtay aan runtii xooga saaray ilaa amarkiis wax walba way yara fududaadeen inkastoo aysan fududayn laakiin haddana somehow maaragtay waxba suurta galay waxa dhacday marka walaalo in aan dad beeshii maaragtay ay dadkaas inaan la xiriira u baahanahay muddo badan bay qaadatay runtii qarash badan wax badan baa baxay anyway waxa dhacday anigu inaan maaragtay CV-gayga aan qoro oo anigaan Deeqa ahaan maaragtay intaan CV-gayga qoro aan gudbiyo si maaragtay at least la igu soo jawaabo adigu muddo ka bacdi waxa dhacday inaan sawirro badan oo maaragtay aan helay adigu 20 iyo dhowr ilaa 30 qiyaastii dadkii duurka ku noolaa kamid ah marka waxa dhacday marka ilaa amarkiisa sawirada aan fiirsanaya isla dee hadaabad maaragtay noloshii dhinacaas aad ku abuuri lahayd waad gaartay xilligeedii ayaa waxa dhacday Cabdi Xafiid wallahi waxba kaama qaranaye waxa dhacday waxaan arkay oo indhahaygu ku dhacday nin maaragtay cajiiba oo Soomaalidu waxay u yaqaanaan dadka quruxda badan faras wallahi faras buu ahaa ilaahay baan ugu dhaartay sawirradii wallahi ma wada daawan sawirrada inaan sii wado oo daawado bay ahayd man daawan waxaan sameeyay waan joojiyay meeshii waan ku joojiyay isaan ku noqday haddana waan fiiriyay dadkii soo diraa xiriiro waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay qofkaas weey adigu process kala bilowday in la arko in maaragtay la kulmo ninka cawaanka ah muddo kadib waxa dhacday Cabdi Xafiid oo haddaan ku idhaahdo ka waran wallahi markuu islaamay ayaa waxaan dareemay inuu ninkayga yahay